jacaylku waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto, waxa ugu adag ee la kasbado, iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo. xushmad la'aan jacaylku waa lumaa, daryeel la'aan jacaylku waa caajis, daacad la'aan jacaylku waa farxad ma leh, aaminaad la'aanna jacaylku waa midaan degganayn. goortii aad tidhaahdo waan ku jeclahay, waxaad ballan ku samaynaysaa qof kale qalbigiisa. waa inaad ku muujisaa ficil si aad u caddayso. jacaylku ma ahan qiiro keliya, jacaylku waa ficil. jacaylku ma aha dareen keliya, jacaylku waa daryeel. qofka sida dhabta ah kuu jecel wuxuu kaa hor istaagaa inaad dembi samayso. qofka aan sida rasmiga ah kuu jeclaynna wuxuu kugu dhiirigeliyaa xumaan iyo inaad dembi samayso. dad badan oo aragtida wejiga keliya wax ku jeclaado, gadaal bay ka qoomameeyaan, sababtoo ah jacaylku marnaba kama dhasho quruxda wejiga, balse wuxuu ka dhashaa quruxda qalbiga. intaadan qofka jeclaan marka hore fiiri inuu naftiisa jecel yahay. haddii uusan naftiisa jeclayn, adigana jacayl kuma siin karo. goortii uu qofku jecel yahay ma aha had iyo jeer inay afka ka sheegaan, waxaad mar kasta ka garan kartaa habka ay kuula dhaqmaan. haddii qof aad isjeclaydeen kaa tago, ha murugoon, hama tagin, ha isgubin, cuntada ha ka soomin, heese badan ha isku maaweelin. fiiri naftaada inaad nooshahay oo neefsanayso, kadibna horay u wado noloshaada. u sheeg qalbigaada in qof kaa tegay ee aysan ruuxdaadu kaa tegin. ha u beddelin midabkaada iyo naftaada si dadku kuu jeclaadaan. ahaw qofka aad tahay, dadka saxda ah ayaa ku jeclaanaya. dadka sida dhabta ah isu jecel si sahlan kuma kala haraan. haddii ay jirto 100 sababood oo ay ku kala tegi karaan, waxay helaan hal sabab oo ay ku wada joogi karaan. haweenku ma ahan kuwa dhib badan, waxay u badan yihiin kuwa jecel inay ogaadaan inaad jeceshahay. marnaba noloshaada inta aad nooshahay cidna ha ka baryin jacaylkiisa. qofka sida dhabtaa kuu jecel waa inuu jacaylkiisa kugu siiyaa gacmo furan. ogow, qof haddii ay su'aalo ku weydiiso, waxay ka dhigan tahay inay ku danayso. haddii ay ku danaysana, waxay ka dhigan tahay inay ku jeceshahay. ninku waxa uu jeclaadaa gabadha uu ixtiraamo aadna u qadariyo, laakiin gabdhuhu ma ixtiraamaan mana qadariyaan qofka aanay jeclayn. laga yaabee middan inaad iga fikir duwan tihiin. dhibaatada jacaylka waxaa sabab u ah ninka oo doonaya inuu noqdo qofka ugu horreeya ee gala qalbiga gabadha, iyo gabadha oo doonaysa inay noqoto qofka ugu dambeeya ee gala qalbiga ninka. gabadhu haddii ay jacaylkeedii koowaad ama midkii ay si dhaba qof u jeclaatay ay ku fashilanto, nolosheeda inta hartay waxa ay ku noolaataa xasuusta jacaylkaas. laakiin ninku waxa uu ku fikiraa abuurista jacayl cusub. jacaylku waxa uu bogsiiyaa nabarro badan iyo xanuunno, laakiin ha u qaadan inuu dawo yahay, balse isaga ayaaba ah cudur wax kasta ka weyn oo ku ilowsiinaya xanuunnada kale. ogow, qofka wax jecelow, jacaylku ma aha waali, laakiin waali badan ayaa jacaylka dhexdiisa ku jirta. weligaa intaad nooshahay ha siin wadnahaaga qofaan aqoon sida wax loo jeclaado. ha jeclaan qof aan ilaahay subxaanahu wa tacaala jeclayn. haddii ay ka fogaan karaan oo aysan jeclayn oo aysan qaadanayn amarrada rabbigood, ogow, adigana waa ay kaa fogaan karaan. ha ku khasaarin wakhtigaaga qofaan rabin inuu wakhtigiisa kula qaybsado. ma dhimanaysid haddii aad weydo qof aad jeceshahay, laakiin waxaad dhimatay marka aad weydo sharaftaada. ha ka shallaayin inaad qof jeclaatay, qofkaasna uu meel cidla ah kaaga tegay. ileen qofkaas wuxuu ku siiyey jaanis aad qof kuu qalmo oo wanaagsan ku raadsato. ugu dambayn, 100 weji oo qurux badan waxaa ka fiican oo ka wanaagsan hal qalbi oo daacad ah. weji oo qurux badan waxaa ka fiican oo ka wanaagsan hal qalbi oo daacad ah.